قدرت أنا كمان لسه توصل هذا النقطة ونيو سولو هذا أبوان مختار عبد الحرسي وكمية أبوانا تغير يقصد بريد الكتبوية الصومالي لان مختار عبد الحرسي وكور بحنيا إن بدلنا مري تهريب وتمضى عالم ككمية مختار عبد الحرسي بل وكور هذا وياش تهريب كي بعد تغير هذا هي اللي يرضى قلنا بعد كساعة ويكسيس قيان يكسيس سودان ما نبغى ما نتكلم horta Saciido dhibada saxaafadda aad baan u salaamayaa mahadsantiin waxa weeye anigu taariibtan iyo intii aan garanaysa maray ayaan anigu oo jecel inaan wax ka sharaxo dhalinyaradana ka wacyigeliyo ayaa waxa weeye anigu waxaan baashan bilaabay taariibta 2004 saacad muddo badan baa waqtiga galmo waxyaabihii kugu kalifay taariibta maxaa ka mid ahaa Mukhtaar wallahi iyo wax dhibaato ah oo markaa yeeliyay ma jirin laakiin si waxa weeye qofku hadduu hanqal taago garanaysa sheeko been abuur ah oo aan xogteedana haynin oo himilo kale garanaysa isku ajasman garaya kulli waxa weeye dhibteeda leedo meesha mahalakadii iyo dhibaatada taa lama oga saacada waxa looga dhigay qofkii sidii qof tacabur oo kale gaadhay u raacay waana Mustafa dheero dhibaato badan ku jirto waxa weeye laakiin anigu dhalinyaradaas ka sibir dhaqaaday ayuun baan ahay Yurubta ku qafilinta marka marxalad badan oo igala soo darsay dartood ayaa waxa dhalinyarada odhan lahaa naftiida biimaha gelinaya waxa weeye dhulkiina hooyo ayaa wax walba ka wanaagsan marka ciidiina idinkoo aaminaya roon ama ku dheerega ama ku gaajoodo waayo Mustafa inta leega dhibaatada inta leega naxbarsan waa mushkil Mukhtaar adiga soo koobiyo waxyaabihii kuugu dhibta badnaayaad kala kulanto ama tacaddi ha ahaato ama in lagu dhaca ha ahaato ama in lagu dulmiya ha ahaato ama in jeeg lagu rida ha ahaato maxaa ka mid ahaa dhalinyarada aad ka wacyigelinayd waxaan ka wacyigelin lahaa annaga oo 110 ayaan laash ka raacnay meel 7 kilomitir u jirta Boosaaso bariga ka xigta oo mareero la yiraahdo dabeetana laash yar baan la saaray isteetana waxaan sii socnay Mustafa dhan 3 habeen kabacdina laashka badan naga xumaaday dad badan baa ku dhintay annaga inteedii nabad tagnay dabeetana xeebta meel beer cali la markaan galay 8 fiidnimo ayaa dadkii la yiraahdo rog dadkii marka ay deegaan tiray ilaa 15 qof ay muujid ku dhufatay laashkii waa isku rogo force kabacdina waxaan kaga baxnay konton 9 baa waxa ku dhintay meeshii in lix baa ku dhintay konton oo kaga baxay isla markaa naxdinta inta leeg iyo tacaddiga inta leeg dhibaatada inta leeg ilaashkii dhamaad la socotay u dhacay Mukhtaar Cabdi Xirsi ma iska daysay taariibtii mise halkii ayaad ka sii waday wallahi hortani wuxuu waa balwado in ilaahay ka soo hadeeyay mooyo qofku sidoo uga joogso waa adagtay asaatiyaanu baasha waxaan ka haray 2010kii bishii afraad 2010kii oo laga dejiyay Muqdisho intii ka dambeysay dhulkaas ka aaminay man socod man gelin faraha ka qaadisay runtii marka intii yaro aan ka tirinayo halkaas oo aan tusaaleynayo dhalinyarada mahalakada ku jirta ay leedahay aniga oo saaxiibkeed deem garanaysa uga warramay xaalada dhulka soo wada marka hada sano ay ku taala caasimada Yamanta ayaan nin isku baranay badna xulino naftiina biima gelisay maxaa halkan soo mariyay waxa ku rinno wadakayga shaqalaan ma ka jirto dhibaato noocaas ah kale ugu tigtay dabeetana wuxuu dhibaato deedan ma hayse waxay dhahayaa waa garasay kibir iyo dhulkiina ka qaltaagaysan dabeetana markaa halkaasaan anigoo sidii waxyar tusaaleynaya ayaa waxaan lahaa haddii aan bisaaradii ahayn baxar ma jeedeen baa xasoore iyo tahriib uma bareegeen bartamaha habeenkii sidii bahal ma dhuntay bartii la sheegay uma qabanay barid iyo kuma dhaxeen xaalihii bare barqadina la iguma gureen doon yar oo aan baraar ari sidiisii khaniga kuma bislaadeen dhow bariinaasiis booskiya rabay anigoo bastay qabaha raad baahiye iyo daal bixi carab kama soo degan xeebtan barcay gurigaarta joogtiya askari iguma baadheen min military oo dadka dee baadho intay 500 riyaal ka qaadan ilaa gaariga ku saarnaa dhawna gaariga yoonka saaro lacagtan ku bayra gurigaarta joogtiya askari iguma baadheen baabuurta la iguma guray shirkad booliis bartanka mayfa la iguma shugeen baradii khayraad oo halkii boorka weyneed gram kuma bislaysteen magacayga buur kuma qoreen baa shacaysan birdi dhalashadayda iyo deegaanka ma beeyasheen idaaqadaha la iguma tixin yuan bixiyeen waska kuma kareysteen 2000 bil sidaan ahay oo caasimadan ma beegsadeen beledka maahu marka Yamanta halays waxay u leeyihiin maahu garasa naay ka halaysan bartankii sanad maanta goor baraysa ah bulshadii asxaabtii salaaniga ma boobteen bayli ma geeyeen turki badiba joogan meeshana qabyaalada lagu qaybiyo sanadaha dadka lafteebaad iyo jifadeebaad laga dhamaanay
sanca baaxad ma lehe markaan bile dhex joogjoogay biijood kamaa soo koreen bidhaha leylkiiyo sacda kuma baraysteen adduun beriba wacayna waa magaalo markaa waqooyiga imanta ku taalloo sacda la idhahdo ay degaan xoutiyiintu oo dagaal ka soconaya iyadoo bil rabadaan tahay oo bilada xaydaamay birtii kantaroolka iyo nuqdada baakinada ayada burcad iyo dugaagimo furteen boolisiyeyi baadka iyo ilamay dhaceen buurka jaakaha uumaha riyaaladan ku riday igama baadeen baska kuma wareegeen daxyaantuula baaba baabuurka fiilan maan gelin siibile baali turka beerka maa sii dhigan sida bakayli bil dhawaaga subaxdii shurdada uma bareedhen shurdaduna waa booliiska lagaansa wurihii alqaxar maan koreenba horodaaye banka waayey dabax maan mareen badowga reeraa bartankii khamiis maan tageen beertii gaajada waa beer markaa uu nin suldaanileyo magaranaysa sheekul magaalada magaranaysa sheekul mandaqa la dhahdo aan askartu ilaa ka marqaato ka taariibta markaa meesha iskaga xamaaneeya ugu dara ilaa isagaa marka qaatan dabeetana adigu markaasi waa markii ay taariibta ahmiyadda aan u hayay ee aanan dhibaatadeeda weli ma garanaysa inkastoo aan tilmaamayo dee waxyaabii aan kasoo maray haddana markaa anigu waxaan aan ku doodayaaba dee waddanka iyagii baa ma garanaysa ah laakiin markii dambe aan xaqiiqada dee ogaayay dhalinyaradana waan ka wacyigelinayay aniguna waan ka ducaystay markaa mukhtaar markaan aad maansada aad tirisay ma jirtaa maaso aad ugu digaysay ama ugaga digaysay dhalinyaradan 24 saac sii socota waad aragtaa dadkii way 24 saac sii socdaana waxay beegsanayaan waddan shisheeye dhibaato badan imika adigu waad ka martay muddo badanna waad ku jirtay ilaa 2004 ilaa 2010 muddo badan baa dhacaysa in badan waxaa laga yaabaa inaad xidhnay ama aad dhibaato kala kulmaysay maase ma jirtaa aad kula hadlayso dhalinyarada ood kaga wacyigelinayso aad leedahay war iskaga jooga dhibaatadana ku socotaan iyo hagardaamadana 24 saac diyaar ku tihiin ayo siciidow waxa weeye haddii horta dadkani waana wax ku qaadanayaan dee abwaano badan ba waxay yidhi balse anigu tix yaroo dee magaranaysa afareeya oo aan ku tusaaleynayo dhibaatada taalla iyo magaranaysa in waddankooda dadku yimaadsadaan ayaa waxaan leeyahay anigoo u sheegayo macnihi aniga waqtiga kaga lumaya dhibaatada leedahay saxaraha wax badan baa fadhiyey saymo dhowr badanna wax badan buu jawaasaday sigeysoofayaa kale saraxaad wax badan baa noqdaa seexday caqab dheer caqabkana waa moosaskan beeraha lagu wareejiye saxaraha raagid badan badan oo carabiya ku jira mugta seexda caqab dheer nafta waxaan ku sabayaa berriya saa dambaad heliyay ma saluugin waayo hadhibto oo saburayaa mana sal gaadhin meeshaan ku waday sahanka reer saymiyo dhib waxaan soo maray guulla iga saaray sadri koobi maayo caqliga saaran aadmiga ninkii sahal qurbaha moodayo waa silsilad dheere safaradan tahriibta iyo haddaad socod danaynayso sulintaa dhibtii taali baa kuu sawiraya laash seefti iyo aan lahayn seebab iyo huri oo sagax qabaaleeg markii boqolo guud saaro sacabada biyaha inaad darto aada sigata aada ciirto iyo inaad sagaal sii dhexdaad silci ku meel gaadho iyo inaad surmido oo haraad sahaydo ruuxdaada iyo inaad safkii akhriyo socoto dheer aado iyo inaad xabsiga seexato uu jaanis kugu seego sifaha tahriibta leho way ku sugayaane ha iska sibiq dhaqaaqina talaa lagu socdaalay oo dee ha malaynina nin gaadhun berberow raacaye meesha mahalaka badan baa ku jirtee oo 10 arrimood ka hor imaada mid baa guule 9 kalena waa guuldar iyo waqti kaa lumay markaas saa darteed ayaa waxaa jirta maaso iyadana aan ka ducaysanayo aan leeyahay ilaahay u dhulkayga igu ris anigu waxa weeye taaguma hayo tahriib dambiyo dalaalka waan hiigsadeen markaa waxaan allahayow tahriib dhaafay iyo dhoofkii dabadaaya haddaan dhera ku helo meelo kale uma dheg taageeni iyadaan askari igu dhibay ina dhirbaaxayna dhulka wax igu sii ciiddu waa hooyaday labe dhalinyarada soomaalida dhoofku waa belo dhalanteed ka baxay meelo kale ha u dheg taageen dhimashadu xaq wey ee dayacu waa dhexma wey adigoo dhulkii hooyadaa dhereg u laafiyooda oo aan dhib iyo hawlba qabin dhuumataad cararto murugada dharaartaa gashiyo dhogor xumaantaada dhacdadaa xasuusku ka qori ruuxa aan dhibanin layal hadalkan ha u qaadan iyo hees nin dhaawadaye dhibaatadu ka badan maasadaan meesha soo dhigay ninkii saaxiibkay ahaa ayaa waxa aan ku leeyahay aniga oo u caqli celinaya inkastaad dhib iyo hawl marto ood meel saldhigi weydo ama aad socod ku dheeraato ood dhoof u himilooto ribaaxada waqtiga kaaga daran dhamac rasaaseed in inuu dhabaradaygaa ka baxa dhaxanta jiilaan
dhabtii waaya arag waa ninkii dhoofay lumay adigoo dhereg filayaad haraad nimanba gaadha dharaariba tilmaan bay qortaa dhinaca waayaaye dhamma lagama helo oo adduun dugor xumaantii waase laga dhammaadaa waqtiga dhimasho mooyaane ninkan dhimani wuu cuni wixii dhuunta loo qoray balandhow rawaayadu marbuu seetan dhammaay markaan lee war saaxib balan iska joogno waa intaasu isbedel baynu hadlaayo ilaahay badda faraj kale inoo furayo markaa maastaa yarana waan saaxiibka ugu caqli celinayo ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka bahdina saxaafadana aad ba u mahadsantihiin insha allah mar kalenu kulmi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqo